dowladda Imaaraadka ayaa Soomaaliya ku dartay liiska 13 dal oo muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan sababo amni iyo khilaaf siyaasadeed ee ka kala dhaxeeya dowladda federaalka. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka ayaa lagu sheegay in sababta ugu weyn ay tahay xaaladda amni darro ee ka jirta Soomaaliya oo ay suurtagal tahay in la dilo ama la afduubo muwaadiniinta Imaaraadka. Dadka u dhashay Imaaraadka ayaa lagula taliyay in haddii ay u safraan Soomaaliya ay feejignaan dheeraad ah sameeyaan isla markaana ay la socdaan waxa hareerahooda ka socda. Sidoo kale wasaaradda waxa ay muwaadiniinta Imaaraadka uga digtay inay u safraan dalalka kale ee Qatar, Lubnaan, Afghanistan, Pakistan, Ukraine, Nigeria, Koonfurta Suudaan, Syria, Ciraaq, Brazil, Congo, Libiya iyo Yemen. dalalkan ay Soomaaliya ku jirto ayaa waxay sheegtay dowladda Imaaraadku in xaaladda amni uga mamnuucday dadkeeda inay tagaan Qatar iyo Lubnaan. Waxaa lagu sheegay digniinta inay sababo siyaasadeed looga celiyay muwaadiniinta Imaaraadka Carabta u dhashay. digniinta dhanka socdaalka ah ee ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka waxay ku soo aadaysaa iyadoo xiriirka u dhexeeya Muqdisho iyo Abu Dhabi uu yahay mid aad u fiicnayn. khilaafka labada dowladood ayaa meesha ugu xumayd gaadhay markii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay bishii Abriil 8 ku qabatay garoonka Muqdisho lacag loo waday ciidamadeeda, sidoo kalena saraakiisha amniga garoonku si xun ula dhaqmeen muwaadiniinta Imaaraadka ee la socday diyaaradda. tan iyo wixii ka dambeysay cilaaqaadka Soomaaliya iyo Imaaraadku wuxuu ahaa mid sii xumaanaya iyadoo Abu Dhabi ay joojisay taageeridda iyo tababarka dhanka ciidanka oo ay siin jirtay Soomaaliya. horaantii bishan ayay ahayd markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriisku ay sidan oo kale soo saartay digniin dhanka socdaalka baqdin xoogana u muujisay isku halaynta amniga ee Soomaaliya. Cabdishakuur Haybe, Kalsan TV, magaalada Hargeysa.